dhismaha iyo dayactirka bridge-ka xaafadda Ceelgoon ee magaalada Burco ay ka hirgelinayso shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom oo ah bridge ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Bridge-kaasi oo ah mid ay si maalinle ah u isticmaali jireen bulshada ku dhaqan magaalada Burco, kaasoo ah bridge isku xidha goobo muhiim u ah isu socodka magaalada Burco. qaar ka mid ah mujaahidiintii Sanam iyo waliba qayb ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay bridge-kan cusub ay shirkadda Telesom ka hirgelinayso gudaha magaalada Burco. ilaahay baa mahad leh, waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Telesom. shalay waan hadlayo bridge-kan baan ka hadlay anoo suuqa jooga. bridge-kan Telesom baa dhisaysa shirkadda Telesom waa la dubinayaa imaka waa ka dusan bariis casriya ayay ka dhisayaan. marka shalayto hadalkaygii wuxuu turxaan lahaa horta raaligeli baan ka bixinaya waxqabadka waddanka Somaliland. cid kasta wuxuu qabanaysa waa ku mahadsantay. bariiska shirkadda hirid baa dhisaysa Telesom way ku mahadsantahay, waayo waa bariiskan wuxuu isku xidhayaa booliiskii iyo dhakhtarkii iyo baankii iyo suuqii labada kaleba centerka magaalada uu uga dhow yahay. marka waxa weeyaan waxqabadka waa la soo dhaweynaya. marka dadkii shalayto ka hadlay hadalka qaloocan ka yidhi horta bariiskii waa taa la duminayo, bariis casriya la samaynaya. hadalkii shalayna nin yidhi degdeg buuxa. haddii ilaahay ka dhigo shirkadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay soo kordhiya oo qaar kalena dhisa. waxaanu leenahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin. bariiskan anigu 77kii iyo dooxanu gabadha jecel iga qaaday anigoo dhakhtarkaa ku jira oo dhaawacaan si soo dhaweeyo halka ka soo tallaabi ha soo tallowdaan si bariiska dooxa qarkiisa keen iyadoo bartaka ku jira labay haayano ayaa labadiiba qaado tiidii mooye tii kale laga soo saar. marka waan u mahadnaqayaa ninka dhisaya maanta kambaniga dhisaya si aanu cid dambe u qaadin. aad iyo aad ba u mahadsantihiin. shirkadda Telesom waa mahadsantihiin. dadkana waxaan leeyahay hala taageero waxa wanaagsan oo waxqabadka shirkadaha mid kastaba waa in la taageeraa, aan hadal xun la odhan. hadalka xagtinta lena qof kasta ha iska ilaaliyo oo hadalka xagtinta leh waxba ma wanaajiyo. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Telesom taasi oo ka soo jawaabtay baahiyaha weyn. maanta ka horeysay maalintii la furay bridge-ka Dahabshiil Xarwada ayaan waxaan dadkii reegooda ka dhibtay. waxaan maalinta aad ugu mahadnaqay bridge-ka Dahabshiil. waxaan soo jeediyay tala ah shirkadda Telesom maadaama ay tahay shirkadda labaad ee isgaarsiinta ugu weyn Somaliland inay bridge-kan noo samayso. bridge-kan oo ah bridge-ka aad u muhiim ah. ugu yaraan 7 iskuul oo dugsiyo dhaxa, dugsiyo sare, iskuulkii nursingkii, jeelkii weynaa, qaybtii booliska, dhakhtarkii oo baahiyaha asaasiga oo dhan isku xidha. waxa mara ardaydeena yaryar ee arkaysaan baa mara. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda Telesom maadaama ay ka soo jawaabtay dalabaadkii maalinta ahaa inay noo samayso bridge-kaasi. waynu ugu mahadnaqaynaa, waynu la shaqaynaynaa. aad iyo aad bay mahadsantiin baan leenahay. dadkeena waxa leenahay qof kasta oo wax wanaagsan qabta aynu taageerno. waxa arkay dad aad iyo aad u hadlayo maxay bridge cageed ka taraya. halkan bridge-ka cagta uga muhiimsan ka gaariga kacagta uga miisa waayo biriishkeena cagta kana waa kan wala jar gaariga kana wala jar laga shirkadda waru mahadnaqaynaa. wax wanaagsan bay qabatay. ilaahay ka saaysiin leenahay inana waan kula shaqaynaynaa. dadkeennana waxaan leenahay waxaan badan inagu muwaadiniin waynu nahay, laakiin wadaniyadu way nagu yarta. marka biriishkii la inoo dhisay la inoo hagaajiyo aynu ilaashano, qashikaynu ka ilaalino, aynu ilaashano waxeenii nagaale. ma sha Allah wala waan soo dhaweynaa Telesom. ma sha Allah meeshan khatar baa lagu qabi. laba nin way ka dhaceen, nin wuu dhintay, ninkii kalena neerfaas wax ka noqday. carruurtii malawada aragtaa markuu daadku soo dhaco dadna waa ku lugooyo, carruurtana waa laga daba tagaa, waa loo warwaraa. ma sha Allah tabaarig waan soo dhaweynaya. wixii wax qabanaya Telesom baa la barakeeyo. waa faantay Soomaha midda labaad daayartu waad aragtaa. dhib bay ku ahay, way ku hoos caradayeen, daadkay ku dabaanayeen, direeska ka qoyay mararka qaarkood. ما شاء الله Telesom waan soo dhameynayna, Dahabshiil waan soo dhaweynayna, wixii wax qabanaya waan soo dhaweynayna. aad iyo aad u soo dhaweynayna haddaan nahay shacabweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. wax qabadkan ballaaran ay dhisayso shirkadda Telesom
annagoo ka sii jeclaan lahayn inay baabuurtana ka dhigto insha Allah laakiin waan rajaynaynaa wax kastoo ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan waa ku ammaanaynaa qofka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqaaleeyay shirkadda Telesom waa soo dhaweynaynaa wax qabadyo kale fara badanna waa ka rajaynaynaa shirkadda Hiirad ee dhisaysana waxaan leenahay Allah ku guuleeyo oo shirkad wax badan ka qabatay wadooyinkeena iyo biriishadeena ومحمد إبراهيم بريتش تيفيق قرن كالصوماليلان برعو